warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax goordhow ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Hoose ka oo lala eegtay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Sarkaal la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in qaraxaasi goordhow dhacay ay ku dhinteen mas'uuliyiin uu ka mid yahay Cabdulaahi Shitaawe oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Shabeellada Dhexe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cismaan iyo sidoo kale Xasan Badoos oo ka mid ahaa saraakiisha hay'adaha gargaarka. Waxa uu sidoo kale sarkaalka sheegay inay jiraan mas'uuliyiin iyo ciidamo kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ku dhaawacmay qaraxaasi ka dhacay duleedka Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. weli ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi, balse waxaa halkaasi goordhow gaaray kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo gurmad ahaan halkaasi u gaaray, kuwa oo halkaasi ka soo qaaday meydadka iyo sidoo kale dhaawacyada mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale sarkaalka ka tirsan kuwa saraakiisha hay'adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka Shabeellada Dhexe ee halkaasi ku dhintay. wixii ku soo kordha waa in idin soo gudbin doonaa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socotid wararka degdega ee la xiriira dhacdooyinka ka dhaca gudaha Soomaaliya iyo caalamka.